أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورما عندها إيجامس أعوذ بالله مرحمة عندها إيجامس وسكلا روح عن ما أنت أركي تويتر كوكو أركي ما عندها إيجامس وحكلا لا ولا عليه هوشان قدر صنع هوشان معين هوش الصومالي يسوق هتكتي سألوا أنت ما يقول بس سألوا أيه ماش الربطي أدونك قلت على الوجي تقول حن ما نكف لنا نقول حن كمان فلانين ولا جاي ما نرق قف إسلامه oo qof islaam oo dumara oo tiraahdo reer qowmuluud baan taageero u ahay reer qowmuluud baan ayaan doonayaa inaan taageero noqdo ilaa la joojinayo laba dumar iyo laba rag oo caadi isku qaba intay caadi nolosha adduunka ka noqonayaan walaal waxa uma dulqaadan karno runta fiican oo ma dulqaadan karno mana aqbalayno haddaan muslim nahay haddaan Soomaali nahay hawshan hawshii lagu gudmaday ma aha hawl kalaad bartanka kaga jirtaa dhiiqamiya dhijamso dhooqadii cagaha la gasho دوقت حاجة كل شرطة أساس كما يرد على ذاكرة ما يكبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا channel كذا حرابك كسر هذا وروان السلام يا ميرة شوفتان با هلا هاي مانو نكسن كل أنا كمان بيجي هاي مركو هلا مانو نكسن ولا الشرف ترى maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa waxyaabo fara badan baan maanta ka hadlayaa waxaan ka hadli doonaa waxa weeyaan qof haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed qof ku weyna oo qadarin iyo ixtiraam iyo sharaf aanu haynay oo maanta dhooqa cagaha la galay jir dhooqa ahayd maanta cagaha la galay waan yahay oo caruurteena yar yar wad garanaysaan caruurteena yar yar role model oo ahayd meel aan ka filayn ayaan maanta ku arkay ayadoo ma garanaysaa bahal dhooqa kula jirta gacmaha iyo lugaha iyo adimaha koorka intaba kula jirta maxaa u geeyay baas mudan maxaa u geeyay ayaa weydiintu waxa weeyaan maxaa u geeyay maxaa ku kallifay maxaa ku kallifay in maanta dhooqada inta laga cagaha la gasho maxaa ku kallifay iyadoo caruur leh iyadoo ma garanaysaa wax ma garanaysaa wax walba ah waa ruuxii aanu soo ooynay oo ilmada in badan dhashta kaga haynay oo in badan taageerinay oo ilaahay oo aan lahayn mar un meesha ay doonayso gee waxaan maqlay raarxay waxaan urda wax naga tag waxaan Afrika duqsigan ku nacay moogta Afrika iyo duqsi waa walaalo horta markaan idin sheegay sanku ka galiya afku ka galiya anduu ka galiya meel la meesha doono meel uu kiyid kaalashi daaqadu ka soo galay maxaa uu ka soo galay waa inuu sanka ka gala sankaas uu ka galiya afkaas uu ka galiya aanu bir waxaan arkay dadka TV-yada ku hadla oo marka TV-yada ku hadlaya darag waaweyn oo maqaawiir marka TV-yada idaacadaha laga wareysanayo duqsiga say isaga haadinaya hush tabaay duqsiga iska haadinaya markaasaan anu jiray soo markuu hore mid duqsiga iska soo hagaajiya laba halkan meel uu ka soo galgalay ciidana ma control karto meel asaas ka duuduulayaan ugu in buusanka ka soo galiya wixina waa lagu arkaa marka iskara lahaada duqsigan meelaha marmarayana ka raalahaada duqsigu waa iska xabad naftu ku keenaysa u jafayso ma baa galay inuu baxo haddii xitaa saarto xitaa meel ku soo gabalka daaqadaas furan buu soo galiya waa inta waa duqsiga aniga gartayda duqsiga iyo aniga weeyaan kana raalahaada inta yar aan u soo noqdo hawshaydii gabadha walaashay waxa weeyaan talaabo walba Soomaalidu way la qaaday aad bay ugu farxeen hamigoodu hami weyn buu ahaa meeshii laga rabay say u wadeen meeshii la rabay baa la geeyay walow ay runtii waxyaabaha aan ka filanayno dhabar jab ah Soomaalida ay ku sameysay oo ma garanaysaa anu waxaan u qaatay tahay igaarsii meeshan doonay igaarsii markaad igaarsiisina thank you waanu fahmay waad mahadsantihiin saas aan u qaatay laakiin qof walo Soomaaliya ubadkiisa maanta qurbaha jooga wuxuu ku hamiyay meeshii hiblaaya tag adna buu ku hamiyay laakiin noqon weyday si la mooday maaha inaga waxaynu baranaa maalin walba qof intuu wax sameeyo in yar inuu ku ilowno markii way inuu ilowdo shalay wixii aad wax ka baran weynay maanta wax soo socda maanta wax joog ka baran mayno wax soo socda wax ka baran mayno
waxaa weeyaan qofka haddaynu taakuleyno qoftaan ka hadlay horta waad garanaysaan dadku iskuma jiraan walaashay ilhaan weeyaan ilhaan congress women waxaan ka hadlayno ilhaan cumar runtii horta siyaasadda waxaa shaqo kuma lihi laakiin in badan waxaan arkay iyadoo la rifayo iyadoo la rifayo in badan ma arkan waa shib afkayga ka qabsado laakiin maanta waan ka adkaysan waayo aniga i soo saamaysaba maba ka qarsan kara afkayga maba haysan karo maanta tan mid la haysan kara maaha waxaa jira iyada qofku shaqsiyan uu yahay oo shaqsiyan ma garanaysaa qofkaas isaga dhaawacayso isaga kaliya uu ku kooban yahay laakiin tan iyada kaliya kuma koobna waxa ay ku koobantay waxa waa inaga oo Soomaaliya waxa ay ku koobantay waa inaga caruuraheena ku koobantaa dad fara badan waxa jira ubadkoodii wadan shisheeye kala tagay maxay u kala tageen LBG wax dheeraday waad garanaysaan qoom reer qoomuluud u kala tageen waayahay haddaynu aragna maanta qof inaga mid xaysiinaya ka hor waliba rol meedo ciyaalkeena waa haddaynu aragna ma afkiinaad haysan karaysaan ma dad xitaa arki lahayn waxbaad ku oranayda laakiin wada uma walihinba tabarta madan iyadu ku aragna oo nagu sheegano laakiin meelahan ka taractalaynana waa ciilbax baa leeyahay intaan kale waxaan way gaari doontaa iyadoo social media ku jirta ana arkay meel aan ku jirin ma laha walaalay waad maqlaysaa haddaad maqlayso ilaahay ka baq waan ku leeyahay ilaahay ku abuurtay ka baq caruur waad leedahay caruurtaadina aan ilaahay ka dhigin kuwa qoomurmaluuda ilaahay inaanu ka dhigin qoomulka u doodaysid wax kugu kalifay ma jirto gabadh muslimada tahay diin islaam lagu soo koriyay ubad islaam dhashay in islaam qabay walow ninkaaga islaamka ahaa aad ka tagtay adaa waxaad uga tagtay taas waa adiga iyo wax ku quseeya hawlahaaga ikhtiyaarkaaga leedahay laakiin anaga tan gubayso waxa weeyaan meesha nooga doodi lahayd oo reer qoomuluud ka doodi lahayd badnaanta u dooday anuna wax sharaf ka dhaca magaraas anu aan jeebkayga la soo baxayna ma waxna wax adduunka oo dhan yaala waa wax adigu soo qortay oo adiga ma garanaysaa Twitterka ku soo qoray bixiyaan anu ka soo baxay itu soo taabsiino weeye waxa lagu been sheeganayaa maaha beer amuur ka weyn arrin la isku been abuurto maaha qof islaam in la dhaleecayana maaha waxaan ku leeyahay gabaray walaalay kuwii reer qoomuluudka ha xayisiin maayaan kuwii reer qoomuluud walaalahaayeen ma xayisiinayaan maxaa adigoo gabar muslimada ku geeyna xayisiso waxaa kaa galay ma hawlahaaga ma noo sheego ma adiga isbedelay anoo gabar islaam muslimada kuwa weyne markii ugu horreysay xitaa xijaabad walaalay wadatay xijaabkaagii aayar baad kaga tagtay xabad baad u saartay xabad markaa u saartayna markii dambe ilaa heer meesha ugu dambeysay miyaa waxbaa lagu siiyey taanu gabadhan insaan ku fiyo tahay maran maayo lama waxbaa lagu siiyey hadii wax lagu siiyeyna noo sheego xataa waxbaa la siiyey waxaan goran qorayba ma ogi tay waxaan oo la ka tahayna tay noo sheeg magaca Soomaaliyada noo dhig sala calee magaca muslimnimada iyadana ka tag iska bedel magacan waxaad la baxdaa magac kale oo gaalaad la baxday magac kale oo gaala Olivia iyo waxa la bax waxaas la bax magacyada la bax laakiin iska dhig magacan muslimka magac masarkan yar ee madaxa ku duubaysa isagana iska tuur hadii kale ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka bilaadanka waa khaldami karaa soo noqo oo waxa jira waan khaldamay bulsho dhan baan run meel ahaayo balaay qabsatay waxba igu dhacay iga raali ahaada oo waxana taageertay qashinka ee wad Soomaaliyeed khaatiyaanka ka taagan yihiin iyo ummadii muslimka ka toobad keen walaalay ilaahayna u soo noqo xijaabkaaga ku noqo maxaan ku raxdaaye diintaada ku soo noqo gabar muslimadu horta nin gaal ma gursan kartaa sharci islaamku meel ku qorantay ma arkin meel gabar islaam oo nin gaal gursan kartaa ma jirto iyadoo tumareysay kamid ay la mid tahay marka caruur waaweyn baad dhashay ku daawanaya caruur waaweyn ku daawanaysa jirta oo ma garanaysaa aanay tuqsiga qaateen kartaa naga tag baan ku عادي ويان أنا واحد موجودي أفريقيا نتوجان waxa weeyaan marka asxaabta sharafta lahay walaashii baan wali la hadlay anu target baan leeyahay waa gabadha Soomaaliyeed aan la hadlo ciyaalkeedii baa daawanaya bal ciyaalkeedii markay arkaan iyadoo reeqo mulud waxay siinaysa iyaguna xismaanayaan marka hal ma leeyahay sameeyay madmadisa iyaguna meesha walaalaha ka qoodaya reer boow yaa kula weeyaan marka yaa reer boow kule
meel hooyadii waxa iyadu ka xayeysinayso reer qomolo iyaguna way xayeysiiyaan waa ilmuhu hooyada martay ilmuhu hooyada bay dawo ortaan waliba iyagu han weyn bay u qabaana hooyo markii la hooyadiin congress bay ku jirtaa iyaguna hami inta ka sii weyn baa galaya iyaguna waxa la galaya inay baristii isku soo sharxaan marka inay madaxweyne soo sharxaan walaalahay waxaan ku leeyahay kugu fogaan maayo aniguna kugu sii fogaada ma rabo intaas waa tala qof weyn bay iga tahay tala walaaltinimo iga tahay tala Soomaalinimo iga tahay tala qofku jecel bay iga tahay warwaan khaldamay Soomaaliyay way ka soo dheh adoo bari leh aanu ku aragno waayo tan lama dul qaadan karo tan mid aan indhaha ka qabsan karna maaha qof walaal Soomaaliya markuu arkana uu yaabaya madaxu gacmo saaraya gabadhi saana iyagoo markii hore qaatiyaan laga taagnaa xijaabka ayar u dhigayso markii hore la xijaabka rool waxaan doonayaa in meesha aan gabadh muslimada oo xijaab wadato in laga arko tii horta biiq bay ahayd tii waxba kama jirin taas aragnay laakiin mid ka daran baa maanta timid ilaahay nama tuso wax ka sii daran ilaahay nama tuso inta ilaahay noogu ekeeyaan leena fadaaxad iyo ceeb horta inta ilaahay noogu ekeeyo walaashayay ka toobadkeen dambiga adigu aad samaysatay ku goonida taa adiga ilaahay baad soo hortagaysaa anu shaqada ma aha laakiin ta umada aad matalaysid miskaxdaada gali inaad dad matalaysid miskax waxa lagu haystaa waxa weeyaan ummad baad matalaysaa marka aad ololaha sameynaysid ummad Soomaaliyeed baad ka raadsataa gaalka ma raadsatid ummadda muslimiinta iyo ummadda Soomaaliyeed baad ka raadsataa ee walaalahay waad karataa soo maaha marka waxa weeyaan dib u soo noqo iyo miskaxdaada la shir la sheekayso waxaad samaysay weeyaan wanaag iyo samaha aad samaysay saa soo hordhig isxisaabi intaan lagu xisaabin ilaahayna uu xisaabin doonaa reer qowma maluud ogtahay meesha ka taagan yihiin diinta islaamka maanta inaad tiraahdid wax ugu kallifay anigu garan maayo nasan mayno yaa ilaa cunsurnimada laga joojiyo nasan mayno oo waa u taagnaanaynaa waa u ordaynaa waa u dagaalamaynaa walaalay maanta wax ka yeersiyaan u garan maayo waxa kalifaada weyn ma xoogaa lacag aad qaadatay Soomaaliya lacag dhiga halka guriga halkaas laga raacay ma xoogaa yar baa lagu siiyay ayaa oo diintaada ku iibsatay wayaab yaaba kaade oo xabaashaada ku iibsatay oo muslimnimadaada ku iibsatay oo dadka mas'uulka ka ahayd ama dadka matalaysay ku iibsatay anu garan maayo wax ku kalifay adiga iyo Allah is og laakiin dooqadan cagaha lagu galiyay saad uga la bixinayd adiga yaqaana tala qof walaaltinimo iga dheh waana ku salaamayaa inta ka badanna bas anigu cay iyo aflagaada kuma iman meeshan waxaan kugu imid talo iyo inaad ma garanaysaa waxaanad samaysay ka toobad keento ilaa dad dambe mas'uul ka tahay inta baan kugu imid inta aad ugu dhibsatana waad iga raali ahaanaysaa Soomaalida waan salaamayaa meel ay joogaanba walaalayaal iga gaarsiiyo walaashay ilhaan Umar iga gaarsiiyo قام بين كنت هيك جالسية إن شاء الله وأنا نسلام يا إلهي وحنا لا نسوي هذه نقولن أنت أنا هذه سنة إلهي سوي هذه وتبسط توصل إلهي نقول توسيو ما قرنا سايا دون كمان سكدي بدني هاي شرطي سإلهي نضافيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.